بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حيسة لك سؤال وهذا الأكاديمي كسؤال قبرت اللغة إنجليش كعربية يو سومالية. ما أنت إن شاء الله تعالى وحن بلعب دونا بيسك إنجليش كرامة أو بوك 1 إن شاء الله تعالى بوك وحن غنتنا بوكي سدحات وعنكم برنيني لغة إنجليش كم هراء أصرني أو أما عشرة هراء تحناها ناس عدي بوكا قانا وها Learning English as second language iyo buugii conversation-ka ka hadlayay insha Allah taala intaan 10 ka gudbin aan buugan gudbin insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaan wax ka taaban doono waxa la dhaho grammar. Waa maxay grammar? What is grammar? Waa maxay grammar? Grammar is the study of rules about the how words change their form and combine other words to make sentence. Grammarku waa barashada xeerarka ay isku bedelaan ereyadu isoo kala isku xirka ama isku darka ereyo si loo sameeyo jumlad ayaa waxa la dhahaa grammar. Sidoo kale grammarku waa the study of the way sentences of the language are constructed. sidoo kale grammarku waa barashada habka jumlada luqadda loo dhisay ayaa waxa la dhahaa grammar. sidoo kale grammarku is the study of the way that words can be put together in order to make sentences. waa barashada habka ereyada loo dhisay si loo sameeyo jumlad ayaa waxa la dhahaa grammar. insha Allah taala grammarka معنيسا صدحاس قوب بانكو سو كوبني لا سocdo casharka xiga.